dhibaato xalay nagu dhacday dab baa qabsaday suuqii idaacadda qaybo ka mid ah idaacaddii iyo wasaaraddii wasarfaafintana soo gaadhay ilaahay xaggiisa aynu ka baxnay iyo dadaal dheeri oo ay la yimaadeen ciidamadeena dabdamiska mudane madaxweyne waxaan halkan masaafo aan ka badnayn 200 mitir inta gubatay dabka inta uu ku fadhiyay ee gubatay iyo meheradaha marka nambarkooda la eegaana uu aad u badan yahay because waa dadkii dan yarta u badnaa ee mitir iyo barka 2 mitir wax noocaas meheradoodu haayeen madaxweyne ilaahay baan ciwad weydiisanaynaa col iyo dhaanba xaggii laga eegayay bay ka yimaadaan baa la yidhi labadii wasiir ee iga horreeyay halkan concern bay ka qabeen siday dadkani halkan u degan yihiin iyo khatarta ka iman karta proposals dawladda hoose iyo wasaaradda hawlaha guud iyo wasaaraddu ay isla diyaariyeen waa jireen ilaahay qadartiisana ka soo hormartay waxaan kaga kaban doonaa madaxweyne dadaalkeena aad nagu hogaaminayso waxaan u dhaafayaa wixii detailed ah ee wixii halkaa ka dhacay annagoo u mahadnaqayna madaxweyne boqolkiiba boqol ciidanka dabdamisku hawsha waxaa halkaa ka galay ee uu wasaaradda iyo hantida intaa lee ku badbaadiyey intaa ilaahay qadarina intaa inaga noqotay taliyaha ciidanka oo dhan shacbiga dhammaan cid wal oo ka gacan geysatay oo waliba si volunteernimo ilaa booyadihii biyaha sidii private ah ee la soo weecinayay madaxweyne waan u mahadnaqaynaa qaran ahaan iyo dawlad ahaanba waxaan ku soo wareejinayaa taliyaha ciidanka si uu warbixin waafiyay noo siiyo madaxweyne